war qoraal oo shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliya aanay weli awood u lahayn inay al-shabaab ka eriyaan meelaha ay ku xoogan yihiin taasina ay suurto gelisay maleeshiyada inay si xor ah u maamulaan qaybo ballaaran oo ka mid ah Soomaaliya. Mareykanka ayaa arrintan kaga hadlay warbixinta guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee la dagaalanka argagixisada ee sanadkii tagay ee 2019. haddaba hadalkan ka soo baxay Mareykanka ayaa Maxamed Colaad Xasan uu wax ka weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud oo la taliyay hore amniga qaranka haatanna madax ka ah maxadka Hiiraal ee daraasaynta arrimaha amniga iyo argagixisada. waa mahadsan tahay markii koowaadna ma aha oo ay ka dayriyaan tabarta iyo tayada ciidanka Soomaaliyeed oo waqti dheer dhismihiisa dawlado badan oo ajnabi ah iyo dawladihii Soomaaliya ka soo dhashayba ay waqtiga ugu badan galiyeen nasiib darro ciidankaas waxay ahayd in ay sanadka hadda aan ku jirno 2020 ay u diyaar garoobaan inay amniga dalka awoodii ay kula wareegi lahaayeen ay u dhammaystiran tahay waa sida loo qorsheeyey marka in ay qaab qalbi jab ah uga hadlaan maadaama ay yihiin dawladaha ugu badan oo ku bixiya dhaqaalaha Soomaaliya ciidamadeedii sidii loo dhisi lahaa iyo maaragtay awoodda ugu muhiimsan hadda aan isku hadlayno oo cirka ah oo lagula tacaalayo al-shabaab iyo Daesh marka waa arrin aan isleeyahay waa qalbi jab laakiin waxaa nala gudboon in aan cashar ka qaadano oo aan maaragtay ay dawladdu qirto laftirkeeda dhankeeda sababaha keenay iyo waxa uga qorshaay inay arrintaas mar kale dhacdo. waa gartay hadallada ka soo yeeraya Mareykanka oo kale ama dawladda Mareykanka oo kale oo Soomaaliya caawisa niyad jab intee leeg bay ku ridi karaan ciidanka Soomaaliya runtii haddee waxay ahayd niyad jabka ugu horeeya dadka Soomaalida ayaa kulley qaba oo iyaga ayaa dhibka awood la-aanta ciidamadooda dhibka ka dhasha oo ah inay nimankii argagixisada ahaa dhibaatooyinka wadi karaan shacabka Soomaaliyeed ay ahayd laakiin haddana ajnabiga hawsha laftiskooda wax ku leh oo waxay nagu tahay wejigabax oo aad nagu ah in iyadoo kaalmo nala siinayo oo koox yar oo Soomaali ah oo aan sida maaragtay naloo taageerayo aan taageeradeeda haysanin inaan weli awoodeedi weyno inaan wiiqno marka waa qalbi jab dhinac kasta marka laga soo fiiriyo waxaan rabay hal mid inaan ku noqdo oo ah in ay ciidamadeenu gaareen heer ay iyagu howlgal iyadoo la kaalmaynayn ah arrintaasu arrin jirta ma aha waxaa la gaabiyey sheegidii howlgal wadajirka ah oo AMISOM ay mar walba la gasho laakiin ciidan Soomaaliyeed oo keligiis meel tagay maba dhicinba ilaa hadda moralka dee waa yani runtii moralka Soomaaliga ah waa wax Soomaalidu inay dhista ay tahay niyadjabka iyo waxa ay ajnabiga muujiyaan dabcan wuu sii samaynayaa laakiin marka horeba moralka ciidanka wuxuu ku dhismayaa inay iyagu arkaan iyagoonan taageero maaragtay helaynin inay meelo qaarkood guula ka keeni karaan ayaa moralka lagu xoojin karaa marka intii lagu garab taagan yahay oo dhan moralkaagu waa yani waa kala go-an yahay oo ma dhamaystirna marka anigu ma qabo marka horeba in ciidankeenu uu moral dhamaystiran lahaa laakiin haddana tan waa kasii daraysaa al-shabaab ugu dambeyntii al-shabaab iyagu maxay uga dhigan tahay al-shabaab dabcan waa koox jabhad ah oo u arkaysa in dadaalkeedii uu u miro dhalay oo ah ciddii lagu cayilinayay oo lagu tayeynayay in aysan helin weli awood ay keligeed kula tacaasho marka haddii moral la yiraahdo iyadaa moralka helaysa laakiin haddana shabaab ilaa hadda ma muuqata laftirkiisa awood uu yani dhul hadda uu joogo ka badan uu ku qabsan karo haddii aysan xaaladda hadda jirta aysan wax weyn iska bedelin dhegeystayaaalkaasi waxa uu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud oo madax ka macadka daraasaadka amniga ee Hiiraal waxaana uu warramay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan
qoraal oo shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliya aanay weli awood u lahayn